ergada nabadda ee ka soo jeeda degmada Garadag oo maalmihii ugu dambeeyay ugu sugnaa degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag wax ka qabashada iyo xalinta xaaladaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday degmada Ceelaf Weyn ayaa maanta maray la hadleen warbaahinta waxay hambalyeeyeen sida ay ugu aqbaleen beelaha ay walaalaha yihiin isla markaana ay ka soo jeedaan beel ahaan baaqa xabad joojinta ah ee ay ula yimaadeen sidoo kalena waxay ugu baaqaan beelaha kale ee dhigooda ah inay qaataan baaqas xabad joojinta ah ee ay qaateen beeshoodu iyagoo amuuraas ka hadlay waxay yiraahdeen adoo waxa joogta raashii warweerkii Garadag oo erga ah waxaan ku nimi Garadag waxaan nimi Ceelaf Weyn tolkayaan u nimi waxaan tolkayaan u nimi xabad joojin iyo nabad xabad iyo nabadgelyada oo tolkayaan qaatay naga aqbaleen wayna ku dhawaaqeen waan ugu mahadnaqaynaa waxaan loo torki jiray ahaada sidaa noo maqasheen xabadda ugu dhawaaqeen wadda inta hadeen aan u dhameeyno walaal wax ma tarto wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho heeraha kale ee maxaan ku raadayay ka soo horjeedin waxaan u baahnaa xisbiga inaan maxaan ku naga shaqeeyno xabad ay joojiyaan oo miiska waxa kale soo yimaado waxaan kala hadlaynaa ciidamada qaranka Soomaaliland ee maanta kula jira waxaan isku magacaabay Puntland oo guddiga wiilka ka soo hooyay waxaan leenahay ku jirnaa guurista bixiga waa heera 14 jir dadkuna wuxuu caalamka maray war saxaafadeedka beenta ay caalamka wuxuu maray in bixiga saad loo soo dhayahay waxaan sheegayaa علي فارح عبد الله فارح غير سمطر بعيده ودور بعيده إيدون بعيده إناني الدجال كاكوتشرين ورقور كريم إلى سعي ونسلق وتتكلم شرفته ذا يدب مدود أنا آري حين إيجو دتكي وذا الشيء أيهين إيجو دتكي أي لص سكر يهين إلى أن الدجال كاكوتشرين والحبينين بغر اسمه حكومة Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi waxa leeyahay gobolkaasi nabadda halka taalo wax badan buu ka qabtay wax badan la'aantiina wax badan oo ka qabsoomaya ma jiraan waxaan leeyahay dee nabadda haddaynu doonayno inaynu wax ka qabanno lillaahi ana ka tahay eelkeen aynu ku nabdayno waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda Muuse Biixi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa dulqaad inay ka muujiso soo dayso si uu nabadda uga qabto cid kastoo annagoo kala oo kale doona iyo kuwa qaamidka inay talaabadaas oo kala qaadaan una tijaabiyaan si loo helo nabad iyo xasilooni waxaanu kala leenahay cid ciidbeesha ma jirto ciid baa la kordhiyaa inama ciidbeesho cid kastoo taaga ciidbeed ciiduu kordhisaa yaa la kordhiya ciidka inta u marayo yaa la dhaafin waxaanu idin leenahay nabadda iyo garqaadashada iyo ciidamada lagu soo reergalay waxay ahayd ummadda muslimiinta ee walaalaha ee ehelka ah ee dhalinyarada ah ka shaqeyno qaybta laga beegnay baan ka bilownay waa furihii iyo talaabadii u horeysay insha Allah waan wadaynaa inta ay insha Allah la gacmaha isqabsanayaan ay sidoodii hore ku soo noqonayaan waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa dee tolkaan uu nimi runtii laga aqbalay si karaamada sharaf oo waliba si dhaba oo aan ahayn yaacyood iyo soo noqosho aan ahayn nooga aqbalay waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqoto aan liig dambe oo dhibic dambe oo liigi aanay naga dhicin Ceelaf Weyn dagaaladaas oo noqonaya insha Allah waxaan inta ku daray dadka muslimiinta especially reer Somaliland ama noqda reer Hargeysa ama reer Buurama ama reer Burama reer Sanaag noqdaan dadka especially wanaaga jecel ee jecel inay halkan walaalahooda muslimiinta ay libaatada ilaahay والدي كبه هي اللي هو بين الهوشة كقرب استعتال أحمد مرسل أسكار ستار تي في عيلف وين.